Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaanu soo wadi doonaa cashirkii shalay halkii inoogu joogay. Shalay waxaan shaqadeena qabanay waxay ahayd flash ayaynu format gareynay. Maantana flash ayaynu format gareynay ayaynu u sameynaynaa booting si aynu ugaga bedelno computer Windowskiisa ama cillad haysata aynu ugaga saari lahayn insha Allah. Marka waxaanu soo furaynaa command prompt oo with administrator ah. Haddaba kan inoo soo furmay waxaanu qoraynaa markaa halka ay inoogu jiraan flashtan window aynu ku boot gareynayno halka uu inoogu jiro ayaynu soo dooraynaa. Ani F ku jira hadda F2 dhibcood enter baan leeyahay ayaho sii furaya markaa dabeed waxaan qorayaa cd markaan qoro sii dhexgal halkii flashtan window aynu ku shubayno magaciisa ayaynu ku qoraynaa markaa halkan. Ani waxa igu qoran Windows 7 ayaa igu qoran. Haddaba ka inoo soo qabtay dabeed waxaanu sameynaynaa markaa cd boot ayaynu odhanaynaa cd boot waynu sii wadaynaa boot sect.exe/nt60 space halkaa waxaan ku qoranayaa imika flashta magaceygii hadda h baa flashta igu qoran 2 dhibcood waynu hubinaynaa flashta inay h ku qoran tahay in kale watan flashta h baa ku qoran markaas h baynu ku qornaa markaa 2 dhibcood enter baynu leenahay. Hadda uu dhameeyay bootingkii boot code was successfully updated on all targeted volumes uu dhameystiray bootingkii. Hadda waxaanu sameynaynaa markaa flashta ayaynu ku shubaynaa windowgii aynu ku boot gareynay. Hadda fastcopy baan igu jira copy-gu yar dadajinayaa waayo windowsku GB-googa aad u yara badan 3.71 meelaha weeye markaa waqti buu qaadan doonaa markaa waynu fududeysanaynaa. Halkan windowgii halkan waxaan ka dooranayaa halkaan dhigayo flashta markaa halkan soo dooranay watan flashtii okay execute baan markaa leeyahay. Haddaba kaa u socdaa hadda hore u dhamaan doonaa markuu intaas dhammaystiranto flashtaas wax walba inoo boot gareynaysaa computer waynu kusoo keeni karnaa haddaynu Windows ka bedelno hadday cillad farsamo gashay aynu software problem ay tahay waynu ku xallin karnaa waynu soo kaxaynaa halkaas ayaynu ka tegaynaa system restore iyo waxaynu u baahnayn. Casharada dambe aynu soo dhigan doonaa insha Allah. Maanta halkan ayaynu ku gabagabaynaynaa flashta booting waynu u dhammaynay wataa socota hadda way dhammaan doontaa markaa baynu ogolaynaa sidaynu Windows ugu format garin lahayn computer oo aynu Windows hadduu 8 ku jiro hadduu 10 ku jiro aynu 7 ugu bedeli lahayn hadduu 7 ku jirayna aynu repairing ugu sameyn lahayn dib u habeyn si uu qaladaadkii iyo cilladihii farsamo ee ku jiray dib isugu saxo. Markaa baynu maanta kusoo jeednaa insha Allah.